السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كيني تضبية تمناد أيين هو جود جرنا. عشر كيني تضبية تمناد تينا جود قلين فضلا خصو بير برتان كلنا يوتيوب ستي برودكشن برتان سبسكرايب تسار وات ما صنتاي. أنا جود قل عشر كينا تضبية تمناد وحكوسي أبسني هاي. sidee ayaynu u soo xidhnaa qarashaadka uu qaato qofka ownerka ama waxa loo yaqaan qabitaanka ownerka oo ah jaamac ceeri gaabo shirkadan ceeri gaabo companies ka leh ayaa waxa uu sii qabaa tusaale ahaan 8387.5 haddaba sidee aan u xidhi karnaa hadda waxay ka mid tahay anada current asset-ka balse marka xisaab xidh la sameeyo kale sidee baa expenses lagu raari karaa isra waxa tagi doontaa meesha ku qoran tahay company dabeetana waxaad ka dooran doontaa meesha ku qoran tahay make general entries halka taamirka joogtay sida taa kugu soo baxdo waxa aad tagi doontaa meesha ku qoran tahay account dabeetana waxaad oran doontaa withdrawal ku wuxuu ahaa jaamac ergaaba wuxuu lacagta la baxay waxay ahayd 8,000 waayahay sida taa markaan soo qorno ayaynu dabeetana debit iyo credit ay ku kala jiraan lacagta waxa markaasi withdrawal oo expense aan ula baxay jaamac waxaan ahay lacagtaasi lacag dhan markaasi qabitaanka uu sii qabeynay taas ay ahayd markaas safe and close markay dhahdo sida taa wixna lacagtii waxaynu arki doonaa in markaasi jaamac lacagtaas uu sii qabay ay ka baxday meesha oo markaasi expense isu bedelay haddaba sida tan markuu joogno ma soo gashay jaamac lacagtuu qabay waayahay lacagtii halkaasi way ka baxday markii hore nagu jirtay haddaba report marka tagno aan soo doorano halka ku qoran tahay baan leeyahay company and financial marka doorano profit and loss nahno hadda halka waxa soo gashay lacagtii markaasi أو قبي مركزي أونركو لعبت أونركو قبي حلقة توات صوغشة withdrawal expenses كي كمتها مركا withdrawal شام عير قاوة انتا سوسي قبي توتال كقراشاتكو مركزي حتى وحمر يساقال $1 أو براع قابك قراشاتك اللي قسوا بدلوه waxay ka mid tahay nidaamkii shaqaalaha kala la soo raacaya sidan iyo dabeetana qarashaad ay u noqonaysaa markaas lacagtaas casharkeenna casharkan koobanaagaas nagu jooga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh